وليدا وليدا مجدو وليدا أرجع ورثني وليدا وليدا مجدو وليدا أرجو ورثني وليدا وليدا مجدو وليدا تويدي واليت ويسا ويا عضيتي واليت ويسا ويلي عروتي واليت ويسا وعلى واليت ويسا حد وبليتي واليت ويسا هاي وطنكي كورس هادي بقولك يا بقول walaabihii iyo wixii may naga kala dameen insaanka way iska degeen haye harran u baahday maxaa nuu ismaaciilkaani oo maxaad is leedahay baa ku xigi doona maxay soo wadaan nimanka alla waxaa wadahay hadalkaa ka hadlayaan banaanka ee mudaharaadyada mooyaane haye waxay way isla sheeqeen waxaad iga warartaa nimanka etoobiya miyay la hadleen puntland waxay ku yidhahdeen joojiya dagaalkii waxaad soo warinaysaa haa goormay la hadleen waxay la hadleen kolley saraatana kolley waa etoobiya way ka hadashay arrintaasoo waxay yidhahdeen annaga waagii hore soo joojina wada qabsan lahaayeen haye maantana badoona waxtumaana faranka qaad baa lagu yiri marka inaga qorshaheenu miyaan ahayn inaynu xadka soo xidhno may awooda unba in la xidhan way haydeen bishan iska nagu yar dheeraaday oo marba gawaan gaadhin horta xadka marba waan gaadhin dhowr jeer haye oo 3 kilomitir baan u gaadhnay qofka hor gaadhay tukada waa la dhaafay iyada aad baa loogu dhawaaday laakiin aad noogu dheer haye marka waa la gaari doonaa insha allahu nimankan ku hoodlay iyaga hadda maxaynu qorshe u haynaa nuuxow annaga meesha warwarka nagu haysaa waa halkaasi way burburaysaa haye dhaqaal ahaana way burburaysaa weli waa lasoo kaloorsaday waa lasoo kala cararayo waa lagu soo kala saxadiina mararta kuu sheego haye waa loo soo tartamaya nimankii maalintii dhaweyd soo goostay maxaa xaggee la geeyey iyaga wayna halkeena la joogaan geesina la joogaan marka miyaa la qaramaynayaa maxaa waa la qaramaynaya waana la hubaa aagna waa la siin doonaa nuuxu nimankani waxay haystaan technika aada u badan inaga xagga technikada iyo ciidanku suu yahay way haysaa nimankani waxay soo sawireen wabka ay leeyihiin baan maalin dhaweyd gara waxaan arkay technika aada u badan ay haystaan nimanka nabadiidka ee SSC la leeyahay wana dhawaan karaan weligood nama soo gaari karaan marka in adeero hadda dee madaxweynuhu nabad unbuu ka talinaya adigu waxaan jeclaan lahaa adigu waxaa tahay nin yani taariikh adag lagu leh marka nuuxa wallahi anigu waxaan aaminsanaa hadii arrinta faraha lagaaga qaadi lahaa nimanka inaa xadka soo xidhi lahay madaxweynuhu suu qorsho u wada markaa wada hadashay haddana labada siyaasada iyada hogaamiyeed militariga waa laisku dhex wadaa waana hagaagaysaa waadhowna waa doontaa 2 bilood gudahoodii hagaagi doontaa ninkii iga waran inacaysay dabdablena lahaa ee abaanduulaha ahaa adeegkii wad iga sheekayaysa ma soo hagaagay hadda etoobiya ku maqan yahay oo hawl baan ugu diray laakiin soo hagaagaya soo hagaagayaa khasar bay kala dulkiisa wey bay saraakiil bay israaceen oo hogaamiyo saraakiilka hoose loogu xidhay etoobiya oo kuweynaa ayuu ka qayb galeen oo afar sarkaal kala raacay in adeero waanu soo xusanaa nimanka idin raacsan ee dhulbaantaha daacadda xagga ciidankeediya mar baanu naa inaanu wax iskugu soo ururino o usoo dirno marka inacaysiidkaasi yaa kaloo ii sheegta waa ilaa kii kale magaciisa muxuu ahaa incabaasho wax mid saddexaad ma jira oo ragga daacadda ee ugu kalsoon yahay
هاي لبضاش الحوصان labadaas xoogga saarana insha allah bismillahi kariim waxaad iga warataa ninkii axmed karaaji ciidankiisa see laga yeelaya kaasi waa khadka uu ka baxaya waa aaga waa dhaafinay haye waxaasoo dhan hadda waa le wax qaybay maanta aniga aad baan idinku hadlayay kowdhe waxaad kaloo iga sheekaysaa in adeerow nimankan maynu samayno inaynu iyaga isku ufano si sawoor ka dhex abuurno waxaan ku jawaabi jiraa arrintaas haye iga waran arrintaasaan ku raaxaysanayaa maya arrintaas sidoo ka dhan bayna raacsanaya ragoo raaqa dagaalkana jiro ciidanka raacay dagaalkee maalintii dhawrtana karaas weerareenay waa laysu haysaa wixii madaxda kaa dhigay waa laysu haysaa waa laysu haysaa wixii madaxda kaa dhigay waa laysu haysaa intaasoo waxyeelaa waqtiga xisaabo